ciidamada amisom ma aha haddaana qaldanayn ma aha nabad ilaalin waa nabad dhaliyayaal waa maandheedkay ku soo galeen Soomaaliya wuxuu ahaa nabad ilaalin haddaana qaldanayn mar dhaxa waxa la isweydiiyay xilligii TFG-da war nabadda ilaalin xaggee taa nabadnimo ma jirtee waxa loo bedelay nabad dhaliyayaal waxaan rabaa maadaama aniga hadda waxaan ka hadli karayaa waa Hiiraan maadaama ciidanka hadda Hiiraan ku sugan uu yahay Puntland State dawladaha safka hore dawlad goboleedka IGAD iyo midowga Afrika iyo Security Council maan iyo dawladda Soomaaliya barkay Security Council nimanka bixiyo waaye dhaqaalaha ay halka ku isticmaalayaan waxaan leenahay maandheedkooda dib ha loo eego ma qabtaan maandheedkoodii shaqadii loo idmada ma qabtaan sababtu ay tahay haddaan wax yar kor istaago waxay ahayd inay ilaaliyaan institutionka waxay ahayd inay la dagaalamaan cadowga waxay ahayd inay faltamaan aniga sarkaal dagaalmayaan ahaa ma ahayn wakiil shacabana gobornatoori gobolkaana in personina wardeen xaq u lahayd annagu duulaan u baxayna waa naga hareen 3 bil baan daba joogay oo aan la warkaale warnala howlgala war maxaad ka leedihiin oo aan qalqaalinayn iska daa aniga madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo anigu xitaa waa wada tagnay oo aan kala hadalnay in la howlgalaan waana dhici weey uu nool yahay madaxweyne ku xigeenkii uu joogaa halkan aan ka baxnaan fadhigooda ugu tagnay waxaan ka codsanay in la howlgalaan wayna ka baaqsadeen waxaan mar laba carrad ku adkeynaya dawladda Soomaaliya maandheedkii ay ku soo galeen dalka Amisom ma haysee inay la xisaabtamaan midowga Afrika inay la xisaabtamaan midowga Afrika oo waxa ciidamada meesha u joogaan la cadeeyo haddaan taa inta uga gudbo waxaan rabaa wax yar in dawladda Djibouti dul istaago Djibouti abaal badan oo Soomaaliya ku leedahay abaal badan oo Soomaaliya ku leedahay haddaan taariikhda wax yar dib ugu laabto markii xorriyadda Djibouti la raadinayay Soomaaliya waxay abuurtay jabhad la yiraahdo jabhadda xoreynta xeebaha muqdisho laga fangareeyay 1975 bishii shanaad 27keedii waxaa lagu afduubay magaalada Muqdisho safiirkii Faransiiska ayadoo loogu magac daray jabhadda ilaalinta xeebuhu inay afduubtay oo Muqdisho wax ku afduubi kartay dawladda Afrika ugu xoog badan baa ka jirtay Muqdisho ka dhisnay dawladda Soomaaliya xama afduubi karo Soomaaliya afduubaysano oo raalli uga ahayd maskaxdooda way ka baxday ma xasuusnaba si kala hadaan u sii dhigo 1976 bishii labaad 3deedii waxaa lagala soo fakaday baabuur ciidamadii Faransiiska caruurtooda ay saareen ayaa xuduudda labaad lagala soo tilaabay waxaa lala soo galay gudaha Soomaaliya 7 qof baa ku dhintay Soomaaliya oo ciidamadii booliiska labaad ku ka yihiin naf iyo maal iyo maskax intaba waa la isugu daray shanta Soomaaliyeena ka mid ahaayeen shantii Soomaaliya calanka shanta geesle mid ka mid ah ahaayeen maantana waxay gaareen inay nagu eegtaan cadawna jarjaraya inay nagu eegtaan oo ay nooga haraan maxay ku kala duwan yihiin iyaga Afrikaanka kale ayagu maxay nooga ku kala duwan yihiin inay wax ku kala duwanaadaan bay yahay waxba kuma kala duwanaa ma garan mana dareemayaan mana fahamsana in la soo tabcay iyo wixii loo galay waxaan rabaa inaan wax yar u sheego gobi ma jabto ay way liicdaa war Soomaaliya ma jabin way yar liicdoon
wax yar liicday Soomaaliya ma jabin Soomaaliya ma jabine way yar liicday wayna soo kabanaysaa insha Allah tii ama mandate ama Soomaaliya waa lagu ixtiraami waayay magacii loo bixiyay heel walaalna waa lagu ixtiraami waayay waxay yihiin ma yaqaanaan ما بفهم سنة وحي كسم ما بفهم سنة دولة الصومالية وحن كعد سنة مدوق أفريقيا يقولها أمانك إن كل حساب تمام أي ويديا ما نديت كأي أم صوم أي لا ما نديت كنسيني ويديا وأي كل حساب تمام وحن لنا هاي عندما الصومالية هلا قاعد عنا قبتينته waxaan leenahay hal tayeeyo ayaga cadawga ku filan way iska kici karaan hal tayeeyno adduunku xoolihiisa waxaan leenahay waxaan u cadeynaa adduunku xool